halkani waa waddanka India. Waa waddan cajiib ah, taariikh weyn leh. Waa waddan ay dawladihii Islaamku maamuli jireen in ka badan 8 qarni. Halkan kagama hadlana taariikhda waddanka India. Waxaad muuqaalkan ku arki doontaa meel lagu karinayo cunto gaaraysa 24,000 oo kilogram oo raashin ah, taasi oo ay cuni doonaan 27,400 oo qof iyadoo laga qaadi doonin wax lacag ah kuna darso oo maaha maqaaxi ama hodheel cuntada lagu kariyo. Intaynaan halkaa u gudbin, halkan waxaa la yiraahdaa Muciinuddin. waa suuq aad u weyn waxayna ka tirsan tahay gobolka Ajmer ee waddanka India. waxaa jirta sheeko caan ah taasi oo ay ka waramaan dadyow ku nool gobolka Ajmer oo ah in Muciinuddin oo ah ninka loogu magac daray masaajidkani uu maalin maalmaha ka mid ah isagoo oo aan biyo haysanin uu dhulka taabtay isla markaana ay biyo ka soo baxeen si uu ugu weyse qaato. biyahan ayaa la sheegaa inayna weli qalalin muddo ku dhow 800 oo sano. intaa waxa dheer, masaajidkan waxaa kale oo yimaada dadyowga aan haysanin diinta Islaamka, kuwaasi oo ka barakaysta biyahani iyo meelo kale oo ka mid ah masaajidka. halkani waxaa cuntada loogu sameeyaa dadyow gaaraya 27,400 oo qof maalin kasta. waxaa ku baxda lacag gaaraysa 55,000 oo rupees, una dhiganta marka doolar loo bedelo $670 ilaa $690. lacagtan lagama keeno meel kale, balse dadka ayaa laga soo ururiyaa iyagoo dadku ula baxaya sadaqa ahaan kuna ururinaya meeshan cuntada lagu karin doono. qaabkan aad arkayso waxaa la nadiifin doonaa meeshani lacagta lagu soo ururiyey, isla markaana waxaa la bilaabi doonaa in cuntada lagu kariyo. halkani waa masaajidka dhexdiisa, waxaad ku arki doontaa waxyaabo badan oo aad iyo aad ula yaabi doontid. halkanna waa sidoo kale waa xabaasha Muciinuddin oo ah ninka loogu magac daray. dadka qaar waxay samaynayaan waxaad la yaabto, way u sujuudayaan wayna ka barakaysanayaan. waxay la tahay ama aan filanayaa oon u badinayaa inaysan ahayn dadkaasi dadka Islaamka, balse masaajidka waxaa soo gala dadyowga iyaguna aan Islaamka ahayn, kuwaas oo ka barakaysta meelaha qaar sida qabriga Muciinuddin, ceelka biyaha, sidoo kale meelo kale oo masaajidka ka mid ah ay ka barakaystaan. Thank you. Thank you.